Nabadgelyada dhabta ah ma ahan keliya inaad ka maqnaato xiisadaha, waa joogitaanka cadaaladda. Noqo caleen haddii aadan noqon karin geedka. Haddii aadan noqon karin jidka weyn, keliya noqo raad. Haddii aadan noqon karin qoraxda, ha ahaato xidig. Waayo ma ahan qiyaasta aad ku guuleysanaysid ama aad ku guuldareysanaysid. Noqo waxa ugu fiican ee aad noqon karto. Waxaan haynaa maalmo aad u adag oo aan horay u sii hayno, laakiin dhab ahaantii aniga ima khusayso, waayo waxaan ku jiraa la dagaalan. Kelimadahaas waxaa ku dhawaaqay mid ka mid ah dadkii ugu muhiimsanaa ee dunida soo mara ee u doodi jiray xuquuqda dadka madmadow ee ku nool waddanka Mareykanka. Waana ninkii u dhashay isla waddanka Mareykanka ee kasoo horjeeday cunsuriyadda, kaasoo yeeshay shacbiyad aad u weyn. Waa ninkii lagu magacaabi jiray Martin Luther King. Martin waxa uu dhashay sanadka markuu ahaa 1992, waxaana ku dhashay magaalada Atlanta ee waddanka Mareykanka. Aabihiisa waxa uu ahaa baadari ka shaqeeya kaniisad ku taalo isla waddankaas Mareykanka. Martin yaraantiis ayuu aad u necbaa midabta koorka. Martin markii uu jiray 19 sano waxa uu jeclaaday gabar lagu magacaabo Curtis Scott. Waxa uuna guursaday sanadku markuu ahaa 1953. Martin xilligaas kadib waxa uu darajada PhD-da ka qaatay jaamacadda Boston. Sanad kadib isaga iyo xaaskiisa waxay soo aadeen magaalada Montgomery, halkaas oo ay dadku madowga ay ku lahaayeen wax aan xuquuq ahayn oo la mid ah xuquuqda xoolaha. Dadka madmadowga waxaa ku yaalay waddankaas magaaladaas Montgomery waxaa ku yaalay maqaayado aysan soo geli karin dadka madmadowga u khaas ah keliya dadka caddaanka. Waxaa dhacday sanadka markuu ahaa 1955 in haweeney madow ah bas ay saarneed uu soo raaco nin caddaan ah, uuna ku dhahay ka kac xaq uma lihid adigoo madow ah inaad fadhido anoo caddaan ah inaan taagnaado. Darawalkii baska waday oo ahaa nin caddaan ah ayaa si dhaqso ah ku joojiyay baska, kadibna u yeedhay askar, uuna u sheegay inay haweeneydan khilaaftay ama ay ku xadgudubtay xuquuqdii ay lahaayeen dadka caddaanka. Kadibna haweeneydii waa la xiray. King arrintaas awgeed ayuu wuxuu u jeediyay khudbad aad u kulul oo ku cambaaraynayo falkaas. Khudbadiisa kadib dowladda ayaa soo saartay warmurtiyeed lagu taageerayo in dadka madowga aynan la kulmi karin cadaadis dhanka basaska ah. Waxayna ahayd tallaabadii ugu horreysay ee uu Martin ku xaqiijiyay la dagaalankiisa cunsuriyadda. King waxa uu mar xabsi galay, waxaana loo xiray inuu gaarigiisa ku kaxeeyay speed aan looga talagelin waddadaas. Waddadii speedka looga talagalay ayuu wuxuu ahaa 30 asagoo ku kaxeeyay 35. Waxa uuna xabsiga ku arkay qaabka loola dhaqmo dadka madowga ah ee xabsiyada ku jira. Bishii Oktoobar 1964, Martin waxay u ahayd maalin aad ugu muhiim ah noloshiisa, sababtoo ah wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize oo uu ku helay doorkiisa la dagaalanka cunsuriyadda iyo midabta koorka. Waxaana la xasuustaa khudbadiisii aadka u macaaneed ama aadka u qiimaha badneed oo loogu magac daray I Have a Dream, waxaan leeyahay riyo. Waxaa ka mid ah hadaladii uu ka jeediyey: waxaan rabaa carruurtayda afarta inay ku noolaadaan caalam aysan ka ciishoonaynin midabkooda, oo keliya ay ciilayso aqoontooda iyo akhlaaqdooda. King waxa uu ahaa ninkii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta abaalmarinta Nobel Prize, waxaana ku guuleystay asagoo jira keliya 35 sano. Sidoo kale King waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee madow ah ku guuleysta abaalmarintaas. Martin Luther King waxaa la dilay 4 Abriil 1968 xilli uu jeedinayay khudbad, waxaana toogtay nin caddaan ah oo la yiraahdo James Earl Ray. Dhimashada King waxaa soo raacay rabshado badan iyo mudaharaadyo ka dhacay guud ahaan waddanka Mareykanka. Ray oo ahaa ninkii dilay King waxa uu ka soo cararay waddanka Mareykanka, laakiin waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee London, waxaana lagu xukumay 99 sano oo xarig ah. Ray waxa uu ku dhintay xabsiga sanadka markuu ahaa 1998 kadib markii uu ku dhacay cudurka cagaarshowga ama hepatitis-ka. Martin waxaa loo dhisay taalooyin, sidoo kale waxaa loo asteeyay maalmo fasax ah. Fasaxyadaas waxaa ugu waaweynaa midkii fasaxa federaaliga ah ee dowladda Mareykanka samaysay isla sanadka uu dhintay Martin Luther 1986. Waxaa sidoo kale loogu magac daray in ka badan 730 wadooyin oo ku yaala waddanka Mareykanka. Waxa uuna jiray King marka uu dhimanayay keliya 39 sano.